Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri as-sidqu yahdi ila al-birr, runtu waxay ku hanuunisaa wanaaga. oo qofkii balanta qaaday haduu qof run ku salaysan yahay balantii uu oofiya, halkaas wuxuu ka helay faa'iido inuu balantii oofiyo. oo qofkii aaminsanaa maalinta yawmal qiyaamah haduu run yahay ama si run u aaminsanaado uu amal fashaa. oo qofkii aaminsanaa cilmigu ama qofka cilmiga barta inuu ka darajo weyn yahay dad kale cilmigu baranaya. oo qofkii aaminsanaa qofkii Ilaahay ku xidhma ee samir la yimaada in ma garanaysa uu khayraad fara badan helayo. oo qofkii samro uu guuleystaa inuu guuleysanayo qofkii aaminsanaada sirun ah qofkaas uu samraa. markaana runtii waxay u keentay in uu qofkaasu birri ku jiro oo min al-abraar dadka oo ka mid noqdo. birriguna waxa weeye in waqtigaaga oo dhan wax wanaagsan ku jirtid, hadii lagu imtixaamo asamirtid, hadii wax heshid oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmo ku siiyo aad ku shukriyo sadaqada bixisid, hadii oo qof walaalka ku soo martiyo ina martiqaad wacan u sameeysid, hadii lagu aamino ina tafakkur fima sabaqa. sheekhu wuxuu leeyahay waxa daa'imta ina ku fakartid wixii ka hormaray, wixii aad sameysay oo dunuub iyo macaasi ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ila khilaaftid دائم إنها كفكرت من المخالفات. محال النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم تفكر متواصل الأحسان. وحوها النبي صلى الله عليه وسلم مد تفكر بدن وكفكرة مكرنة الدنيا ده يحيى حلالهس. مركا ما دام أدو الذنوب لهاي والنبي صلى الله عليه وسلم وحيالك لو كفكر جري، لكن ما دام أدو الذنوب لهاي ذنوب تكفكر ومحا إلهي وعاصي ومحا أسميسي وحا ومحاد وحا سو حاران aad u cuntay oo maxaa waxa soo xumaan oo balaayo aad u faafisay waxaas dhan waa inaad ka fikirtaa. waxa jira dadku way dhintaan qubuurahana waa la aadaa waa lagu soo aasaa. waxa jira run ahaantii dad xumaan faafiyay ama ummadda bulshada markay la joogaan xumaan maahan wax kale aan ka shaqeyn ama shaqadoodu ay xumaan tahay. haddana dadkaas markay dhintaan qubuuraha la geeyo dadkii saaxiibada la ahaa ee waxyaalaha xumaanta wuxuu doonaha ee soo sameeyay jiray dadkaasu qofkii baa laga yaabaa inay intay u duceeyaan hadhowtana qofkii xoogaa amaanaan hadhowtana iska soo noqdaan. kuma fakirayaan war qofkan saaxiibka buu ahaa xumaan baa la wada sameyn jirtay isna xumaan buu sameyn jiray. waxyaalahan aad ka hadhid oo waxyaalahan ka hadh sidii dad ku faraxsan intay qofkii soo aasaan oo ay tagaan oo hadii doonaan u soo duceeyaan, hadii doonaan social media ka qayliyaan oo ma garanaysa ka amaanaan oo akhlaaqdiisa wanaagsana ka sheekayaan iyadoo la ogyahay qofkaas ummadda bulshada dhexdeeda inuu xumaan faafin jiray ayaa haddana soo tagayaan. macnaha dadkaasu fakarkooda ma aha war waxan waa xumaan ma ba xasuusanayaan waxan inuu xun yahay wixii ku jiraan iyo saaxiibkood wuxuu ku dhintay inuu wax xun ahaa iyaguna ay wixii dabada sii hayaan. markaana dadku hadda heer ka gaaraan macnaha waa heer xumaantii ma garanaysa aan dan laga lahayn oo wixii ma garanaysa qofkii haduu sharaf leeyahay oo magac leeyahay ummadda caan ku yahay wuxuu doonaha ka shaqeeyay in uu ma garanaysa qofkaas uu wax weyn qabtayo uunan xumaan ku jirin ay dadka heer siyaasi gaaraan. markaana almuhim waxa weeye waa inaad ku fikirtaa waxaan markaa ka fikirtid inuu wax xun yahay waa ka tagsaa oo wixii waa ogaanaysaa. laakiin hadii aad fikir weydid waxa weeye wixii waxaad oo dhaqamtaa si awalba wax xaraan mutawaasil ahsan qof murugo badan oo waxan aad sameysay mar walba waxa weeye waa amalkaagi waa wixii lagu qoray waa wixii adiga aad sameysay baa lagu qoray adigay ku soo noqonayaan wax xuna adigu ku soo noqonayaan. marka waxan waa inaad ka fikirtaa. وخذ بالتفكر ندما. الشيخ wuxuu ku leeyahay tafakkurka waxa u qaata qoomamo iyo toobatan iyo toobad ila Ilaahay subhanahu wa ta'ala toobad weydiisatid waa istighfaaran iyo istighfaar waxa suran u qaado oo ma garanaysa dunuubtii iyo macaasidii markay ka dhacday qoomamo la imow oo waxa tiraahdaa maxaa waxa u sameysay inta waxa sameynaysid hadaa waxaan sameyn lahayd dadka wanaagsan wixii gaareen ayaa gaari lahayd ama toobatan ama halkaaba ku joojiba toobad keen laymo Ilaahay subhanahu wa ta'ala toobad ka bari xumaantii barta ka tag oo istighfaaran Ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf
weydiiso sababtoo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri annadamu tawbah nadamku iyo qoomadu waa toobo ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam oo qofkii xumaantu sameeyay ka toobad keena ka qoomooda xumaantu sameeyay balaayadii iyo macaasidii qofkii ka qoomoodo ka carooda qofkaasu waxay dariiq u tahay inuu toobad keeno qaar fara badanna ma garanaysaa ka qoomoodo dunuubta sameeyeen iyo xumaantii way jiraan laakiin si balaaya waxay ku dhacday macnaha qoomoonkaas waxba uma taro isla markaana wadadoodii bay ku socdaan laakiin kuwa Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keenaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqiisa iyo diintiisa u soo noqonaya isla markiiba waxay sameeyaan toobad keenkaas ay qoomadaas ay kaga bilaabaan hadhowtana toobadii bay ku xijiyaan soo warayso qof kasto oo toobad keenay wuxuu ku dhahay aniga waxaasan ugu dhacay waxaasan ka fikiray saasan dhahay saasan isagii ba qoomooday wuxuu markaan qoomooday kadib ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa وتوبت كان النبي صلى الله عليه وسلم حجر من أكثر الاستغفار جعل الله من كل قم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب النبي صلى الله عليه وسلم حجر قفكي بديا استغفار تقفك بديا إلهي سبحانه وتعالى شيء كستو وقمئة فرج أيو غفرة ميل كستو دباتك كسو سكعتو dhibaatadaasna ay muruq xun u geysanayso waxay tootaato risqiga oo ka yaraada awlaad la'aan haato irsaaqadiyo ka yarata haato ma garanaysaa in cadow fara badan dhinacyada ay ka soo galeen waxaas oo dhan haato Ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj ayuu kaga dhigaya wa min kulli diiqin makhraja diiq kastaba iyo diiq macnaha nolol isku soo xirantayo qofku uunan garanaynin meel alaala meel uu u baxsado meel alaala meel uu ku badbaado meel alaala meel uu wax ka keeno oo garanayn uu qofkii isku yaaban yahay makhraja meel uu uga baxo ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u sameeynaya warasaqahu min haythu la yahtasib meel uu garanaynin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka irsaaqaya waqala sallallahu alayhi wasallam at-ta'ibu min ad-dambi kaman la damba lahu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkii ka toobad keena dambiga wuxuu la mid yahay sidii qof dambi aan lahayn ayuu la mid yahay markaana toobadu waxa weeye aad ay u muhiim tahay sheekhu wuxuu kale ka hadlay حب الدنيا وإنه كسر هالني وراعي إياك وحب الدنيا وقلل من المخالطة أبناء الدنيا فإنهم يحملوك على طلبها والكثر منها والاشتغال بها عن الله تعالى والله تعالى قد نهاك وعرفك حالها بقوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وسينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد markaana baabkan waxa weeye baabka hore oo saaday ayuu sheekhu dib ugu noqday iyadoo ay macnaha muhiimadu ay tahay qofku mar waliba inuu adduunyada ka fogaado adduunyada ina ka fogaatana ma garanaysaa maaha in ma garanaysaa in aad shaqada iyo waxyaalaha ka fogaato waxa weeye adduunyada markasto oo aad shaqayso oo aad dadaal sameeyso waxa ogaataa adaas kale ama ku fakir ama ha ku fakirin dad fara badan baa adduunyo in lagu fakiro moodaya hadii adduunyada lagu fakiro in ma garanaysaa adduunyo la helayo adduunyada waxa lagu helaa dadaal ee fikir kaliya lagu helo marka cibaadeysanaysid salaada tukanaysidna ilaahay subhanahu wa ta'ala ka fakir oo salaada ku khushuuc laakiin adduunyaha ka fakirin oo inta yara salaada aad ku tukanaysid adkayso oo ilaahay u fakir iyo ma garanaysaa salaada iyo khushuuc salaada ku jirtid hadhow marka salaada ka soo baxayd hadaa doonid adduunyadii ma garanaysaa ka fakaro macnaha fakar ahaan meelaha ka wax kala dhigi lahayd iyo meelaha wax ka keen lahayd iyo waxa sameyn lahayd iyo waxaas oo dhan ku mashquul markaana adduunyada badanaaba waa ficil qofku waa ficil inuu la yimaado inuu wax qabto inuu shaqeeyo laakiin waa fikiraya meel baa iska soo fadhiisanaya waxaas adduunyo lama dhaw haddii aragtid ama aad la sheekaystid dadka adduunyada aan ahayn aan shaqaysanba ama aan dadka haddii xitaa shaqo aadaan shaqooyinkooda ay dayacaan ee ka soo tagaan dadkaas hadaad ogaatid fikir bay ku nool yihiin meel bay iska fadhiyaan dabaqyo aan garanayn ay iska dhisanayaan markaana hamoodin adduunyada in fikir lagu helo fikir lagu ma helo adduunyo dadka inta la calaanayo ee wax qabadka lagu calaanayo kuwaas ayaa intay fikir ka tagaan ay ficil la iman lahaayeen oo ficilka lagu calaanayo ee la leeyahay sameeya oo wax qabsada taasaa lagu helaa adduunyada laakiin se lagu ma helo fikirkaaga aakhiro u daa marka wax qorsheynaysid
oo shay adduunyada doonaysa inay qabsatidna ma garanaysaa markaana dee u qorshayso oo u fakar oo meela u socotid iyo waxa ka shaqaysanaysid u fakar laakiin badanaaba fakarka caadiga waa fakarka aakhiro iyo fakarka diintaada iyo fakarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku waajib yeelay